بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay glaucoma. Soomaalidana waxay u taqaanaa biyaha indhaha ku furma. Waa maxay horta glaucoma? Glaucoma xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada ugu waaweyn ee maanta sababa indho la'aan aan la soo celin karin oo qofka aragiisa aan lagu badbaadin karin. Adduunka maanta dadyowga ku nool qiyaastii 65% xanuunkan ay la ildaran yihiin. 80 milyan oo qofood ayaa xanuunkan la dhiban. sanadaha soo socda sida xogtu sheegaysan 2040 waxaa dhici karta inay gaarto 111 milyan oo qofood in xanuunkan uu saameeyo. Muxuu yahay marka xanuunkan? Waa cadaadis ku furmaya isha oo sababayo in sare u kac uu sameeyo qiyaastii inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ugu talagalay cadaadiska inuu joogo. Noocyada ugu waaweyn ee xanuunkan uu leeyahay haddii aan soo qaadano waxaa ka mid ah mid loo yaqaan open angle glaucoma. waana nooca hadda ugu badan ee dadka inta badan ay ka cabanayaan ama xanuunkan indhahooda uu saameeyay. Calaamad lagu garto ma lahan xanuunkan. Pressure-ka ama cadaadiskana si tartiib ah ayuu marba marka dambe sare ugu kacayaa. Qofkan wuxuu dareemayaa aragtidii in dhinacyada ay ka soo dhamaanayso ama dhinacyadii inuusan waxba ka arkaynin. Xaaladaas waxaa loo yaqaanaa peripheral vision loss. Nooca labaad waxaa loo yaqaanaa angle closer glaucoma. Xaaladan waa xaalad degdeg ah waxayna u baahan tahay si degdeg ah in wax looga qabto. qofku wuxuu la imaanayaa xanuun tiro badan, aragti la'aan oo si degdeg ah ku imaato, laba iyo madax xanuun fara badan ayuu qofkii la imaanayaa. isha pressure-keeda ama cadaadiskeedana intii la yaqaanay 5 jibaarkeedii sare ayuu u kacayaa. xaaladaas waxay u baahan tahay si degdeg ah in loo daaweeyo, si degdeg ahna qalliin loogu sameeyo oo biyaha laga xiro. xaaladda saddexaad waxaa loo yaqaanaa normal tension glaucoma. xaaladan qofka ma dareemayo wax calaamad ah, aragtidii marka dambeeyo way yaraanaysaa, wax pressure ah oo sare u kacayna ma jirto, pressure-kuna waa caadi. nooca afraad waxaa loo yaqaanaa congenital glaucoma. xanuunkan waa xanuunka carruurta ay la dhalanayaan waay. xanuunkan marka qofka isaga shakhsiyan muu ogaan karaa? jawaabtu waa maya, ma ogaan karo. kaliya waxaa loo baahan yahay baaritaan indhihiisa uu ku sameeyo 6 biloodba mar ama sanadkiiba mar inuu sameeyo. qodobka ugu dambeeyo daaweyntiisa waxay noqonaysaa 2 nooc ayay noqonaysaa. midda koowaad inuu qaato daawooyinka pressure-ka lagu dajiyo, tan labaadna haddii uu u baahdo ishiisa ama ay u baahato in loo sameeyo biyo xiris wax loo yaqaano trabeculectomy. aad iyo aad u mahadsantiin.